وهاك صاحب يال soo dhawaada haddii aan halkeeni kasoo wadano muuqaalkeeni afraad ee qeybteeni advancega waxaan rabnaa inaan uga hadalno muuqaalkan waa maxay mitigation iyo sida uu shaqeeyo iyo isagoo oo practicalna suuqa ka raadino kadibna markaan intaas aan isla helno kadib aad videoga daawatid ku codshitid adiguna sidoo kale inaad uga raadisid kadib marka adiguna ka raadisid waxaa kuu fududaanaysa inaad mitigation baratid iyo sida uu shaqeeyo hadhowna uu qeyb uga noqon doono ruleskaada uu waxba kugu adkaan haddii aan farshaxan marka hore koowaad aan kugu yara fahansiiyo anoo farshaxan kugu sawiraayo intaan suuqa isla tegin mitigation waxay horta lagu qeexaa waa dhaqaaqa u dambeeya ee intrigaada imaada ayaa waxaa loo yaqaanaa mitigation move يعني intrigaada intaan la imaanin dhaqaaqa u dambeeya imaanaya ayaa mitigation lahaa sidoo kale marka liquidity-ga dhaqaaqa soo jebiyo haddii aad maxaa la dhahaa dhaqaaqa u dambeeya intriga imaanayana waa la dhahaa dhaqaaqa mitigationka soo jebiyana waa la yirahdaa tusaale suuqa ayaa down train ku socday saan camal marka suuqan down train ku socday jihada suuqa ayaad xaqiijisay oo suuqan uu seeriyaha xaqiijisay maxaa la yirahdaa andala waxaa kaloo halkan kasii heshay maxaa la dhahaa candlekii institutional candlekii marka handala heshay rulekii saddexaad muxuu noo ahaa inaad xariiqda halistaada loo yaqaan liquidity-ga وسان وسميس لوضع تاج هندله هشيد حريقدينا واحد شيء عن رهنو قصوا قادر كان آيات سلاس وهي شيء هالكاس مركا هايدين ساس وهي شيء علامدان liquidity-ga dhaqaaqa liquidity-ga soo jebinaya halkan kasoo soo bilaabanayo halkan imaanayo meeshii AC candle-kaada institutional candle-ka ahaa ayaa waxaa loo yaqaanaa liquid mitigation move qaaqaas u dambeeya waxaa la yirahdaa mitigation move inta aan suuqa la daadanin yani suuqa marka uu liquidity-gan sameeyay dhaqaaqa u dambeeya halkaan aaday oo halkaan ku istaagay inta suuqan hoos handala sii aadin ayaa waxaa loo yaqaanaa mitigation move haddii ayna suuqa markuu uptrend yahayna sidii oo kale suuqa markaa xaqiijisay inuu uptrend yahay high keshid higher location before aan la imaan maxaa la yirahdaa intrigaada meesha ahayd waa inuu suuq soo samaystaa waan ku yiri maxaa la yirahdaa liquidity xariiqdii labada taaji waxay ka badnaa noqon kartay xariiqdan labada taaji waxay ka badan noqon kartay waa inuu soo helaa mararka qaar meesha in lagu wareegtay noqon kartaa mafahanti mararka qaar labada taaji noqon kartaa labada taaji waa inta ugu yar oo lagu qaadan karo mararka qaar waa kasii badan kartaa marka muhiim ah laakiin waa in adu laba taji waxay ka badan aragtaa marka asagana markii saan calaamadan xariiqdan lista loo sameeyay dhaqaaqa markaas u dambeeya ee soo bilaabanaya halkan imaanaya ayaa waxaa loo yaqaanaa mitigation move dhaqaaqaas ayaa waxaa la yiraahdaa mitigation move inaad sidaas u barato ayaan ku rajaynaa soo intuuna suuqaas uusan kicin يعني كان سوق كعاي mitigation ما أهم مركز ومو عادي لكن mitigation كوا متكان إنتان اللي هذا mitigation move فالأسوأ براكتيكالا عن سوق كرادين سوق عن لون ترينكا عن كرادين هذا الكلام ده يا كجرة الكلام ده يا كجرة هكذا سوق جهادي سمركو سيلسان وحقيقي ماشي أي شيء محل candle-kaada ahaa waa kana candle-kaada marka halkaan yahay waxaa aragtaan dalinaa halkaan uu ku jiro ishaag isla eg hore inay ku jirto oo ahayd calaamadii maxaa la dhahaa lagu yaqaanay liquidity-ga waxaa ujeedaa in halkan laga soo daatay suuqa hadda lagu noqday laga soo daatay kadib dhaqaaqaas halkan ka bilaabanaya meeshaan geynayo suuqa hadii aan suuqa kusoo kala bixiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa mitigation halkan ayuu ka bilowday ugu dambeyn halkan ay tahay suuq means waxay ka dhigan tahay marka suuqa halkan uu yimid dad ayaa handalo xiray halkan markuu tago oo saan calaamadan uu la siisinto inay ka galaan
laakiin dadka waaweynka ah oo suuqa lacagaha ugu badan kula jira ayaa waxay ka fikiraan suuqa halkan ay ogeen in laga galo marka khasaare ayay dadka rabaan shacabka inay la kulmiyaan, marka kadib halkaan ay fursad ka furtaan. fursadan ayay meelahan AC candleka ku beegan yihiin ayay ku beegaan inay geeyaan, meeshaas markay geeyaan oo kale fursadoodii halkaan ka furan ayay mid kale soo furaan. markii halkaan la yimaado already ayaga markaasna khasaare ayaa u bilaabanaya. kadib markii halkaan la yimaado suuqa oo meeshan laga sii hoos maro, suuq wuxuu ku qasban yahay uu dhaqaaqan soo dhaco inuu handale uu dib u laabto oo halkaan uu soo mitigate garay handale uu ku laabto. meeshaas marka uu ku laabto ay ayagu kadib intriga saxda ay galaan, waana meesha annagana hadhowtidii intriga inay noqon doonto. inaa fahantay ayaan rajeynaya. hadda example kale aan raadina asagana waa kanaa mar kale, kana liquidity waa kana halkaan AC candlekaada camal baa ku beegan. yes marka intii aan meeshan tegnin waa ina ka heshid. kadib dhaqaaqan meesha jibinahaya ayaa waxaan ku yiri waxaa loo yaqaanaa mitigation move. inuu mitigation move aad fahantid ayaan rabaa si fiican ay la soco. again halkaan haddaad markale fiirisid, halkaan haddaad fiirisid markale waxaa ujeedaa in halkaan liquidity ay tahay, halkaan inay liquidity tahay ayaad ujeedaa, inay liquidity tahay ayaad ujeedaa. liquiditygan markuu sidaan sameeya isaguna halkaan tagay oo soo noqday, mar kale ayuu tagay, halkaan ayuu soo noqday. halkaan marka uu soo noqday haddii mar kale lagu noqon lahaa meeshaan lala simin laga soo noqon lahaa weli waa waxaa waaye liquiditygiina lama jibin ayaan dhihi lahayn. laakiin waxaa ujeedaa ugu dambeyn halkaan dhaqaaqan ka bilowda ayaa ka sara maray. dhaqaaqan weli dhaqaaqan kuu sheegay oo kule liquidity ayaa la dhahaa, dhaqaaqaas halkaas ka bilowda. sidoo kale suuq markuu uu seel yahay waa ujeednaa, suuq markuu baayahayna aan raadino, suuq baayana haddaan ka raadino suuqaana down trend u badan, lacagtan ayaa down trend NCDUSD nagee ayaduna down trend waaye. rabna lacag baay ah baan rabnaa, meelaheeda u dambeeya baayga ahaa fiirino. lacagahan dhan ayaa USDJB waaye, USD karnige waa kan hada lacagtan ayaa baaya. marka waa kanaa liquidity saan camal ayuu u shaqeeyaa. bas lacagtan markay baaya ay tahay hadda halkaan baa waxaa suuqan leebka hadda ayaan ku fiirinayna. halkaan waxaa uga jeednaa liquiditygaas waxaa inooga hooseeya candlekii aan raadinaynay ee institutional candleka ahaa. kadib dhaqaaqan markuu hadda meeshaan uu kaco uu meelahan tago dhaqaaqa kale ee soo jibin doona ayaa waxaa loo yaqaanaa mitigation move. suuqana waa kanaa mar kale hadda waa kan meeshaan waxay tahay liquidityga marka hadda meeshaan aan ka helnay waxaa ujeednaa dhaqaaqan inuu halkaan ka kacay oo kusoo noqday, halkaan ka kacay dhaqaaqan soo jibiyey oo kasii hoos maray liquidityga ayaa waxaa loo yaqaanaa maxaa la yiraahdaa mitigation move. isagoo baayana waa kaasa maanta dhan ayaad suuqa intaa rabta ka heli kartaa. qodobkan isaguna waa muhiim, mar walba aan intiri suuqayna ka geli doono insha allah. mitigation move iyo sida u shaqeeyo isaguna waa sidaas. intaanu ku kulmi doono muuqaalkeena xiga. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.